الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال halkan waa telefishinka S24 qodobada warka telefishinka kuwada ugu doo korona waxaa kamid ah ciidamo ka mid noqonaya booliiska midowga Afrika ee ATMIS ka socda gudaha wadanka Nigeria oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya dagaal u dhaxeeya ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Al-Shabaab ka dhacay duleedka gobolka Hiiraan. maamulka degmada Matabaan iyo mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo maanta booqasho ku tagay saldhigga booliiska degmada Matabaan ballan qaaday in dib u dhis lagu sameyn doono saldhiggaasi. wararka dibadda aad ku daawan doontaa warkeena waxaa kamid ah madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo soo dhaweeyay dhigiisa Turkiga kana hadlay dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya iyo sarkaalka booliiska wadanka Mali oo lagu dilay weerar ka dhacay waqooyi galbeed wadankaasi Mali. jumco taariikhdu ay ku aastaysan tahay 19 bisha 8 Agost sanadka 2022 intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warkeena galabkooda ugu dookroon iminkana soo dhawaada. ciidamo ka mid noqonaya kuwa booliiska midowga Afrika ee ATMIS kana socday gudaha wadanka Nigeria ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sida qodobareedkan uu ku qaada dhigay wariyahayaga Cabdul Fataax Ali Umar Tawakal. waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray ciidamo cusub oo booliis ah kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS kana socda wadanka Nigeria oo kamid ah dalalka hore booliiska ka socda u keenay Soomaaliya. warar ka soo baxay howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayaa waxa lagu sheegay in ciidamadan ay qayb ka yihiin dadaalada ku aadan nabadda iyo xasiloonida ayaga oo ka qayb qaadan doona ilaalinta goobaha muhiimka ah. kahor inta aan ciidamadan la keenin magaalada Muqdisho waxaa munaasabada tababar markaasi ay ku qaateen lagu soo xiray dalka Nigeria ayagoo saraakiisha ciidamada booliiska Nigeria ay fareen in ay si wanaagsan ula dhaqmaan shacabka Soomaaliyeed. taliyaha ciidamada booliiska Nigeria ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayaa u mahadceliyay ciidamada iyo saraakiishooda tababarka markaasi qaatay isla markaana sheegay in Soomaaliya ay ka saaciidi doonaan ilaalinta amnigooda. Cabdi Fataax Tawakal S24 Muqdisho. mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Matabaan sidoo kale tama dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxay kormeer buuxda ku tageen saldhigga booliiska degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo burbur xooggan uu ka soo gaaray weerar qaraxyo oo dagaalamayaal Al-Shabaab ka tirsan ay ku qaadeen saldhiggaasi muddo haatan laga joogo 8 bilood. mas'uuliyiintan ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa qayb ka ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kale oo laga xusi karo gudoomiyaha degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. waxay sidoo kale mas'uuliyiintu kormeerkooda kadib ay sheegeen in dib u dhis balaaran lagu sameyn doono taliska saldhigga booliiska degmada Matabaan. hadaba qodobareedkan waxaa warbixintan soo socota ku eegaya wariyahayaga Jamaal Aadan Cusmaan Jawaab. wasiirka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo ay welinayaan wasiirka boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Cabdi Fataax Xasan Faarax iyo wasiiru dowlaha awqaafta iyo arrimaha diinta Ahmed Dayacad ayaa booqday saldhigga ciidanka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan kaasi oo kol hore ku burburay qaraxyo ay ku xireen xarakada Al-Shabaab. gudoomiyaha degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Mudane Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeye oo ay welinayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Matabaan ayaa gudaha u galay saldhigga booliiska degmada Matabaan ku soo dhaweeyay wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kale. gudoomiyaha ayaa wafdiga wasiirada ugu warbixiyay in saldhigga burbur xooggan soo gaaray qaraxyadii ay ku xireen xarakada Al-Shabaab taasi oo saameysay shaqadii uu bulshada u hayay sida qaybaha garsoorka qolalka lagu xiro eedeysanayaasha iyo xafiisyada taliska ciidanka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. wasiirka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa ballan qaaday in si degdeg ah loo dhisi doono dhammaan qaybaha burburay ee saldhigga isla markaana ay wasaaraddu qorshahaasi diyaarisay si loo soo celiyo adeegii muhiimka ah ee bulshada u hayay saldhigga booliiska degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Jamaal Aadan Cusmaan telefishinka caalamiga S24 Muqdisho. qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay inay ka dilaacdo macluul waxayna sidoo kale ta sheegtay in loo baahan yahay in la dardar geliyo howlaha gurmadka abaaraha ee loo sameeyay dadka abaartu ay saameysay ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. halkaad warkaasi ka daawanaysaan daawadayaal waa telefishinka S24 xafiiskiisu uu ku leeyahay magaalada Muqdisho iminkana akhbaaraadka dibadda.
sarkaal sare oo ka tirsan booliiska wadanka Maali ayaa lagu weeraray bar kontarool oo ku taala waqooyi galbeed wadankaasi Maali. dibli hubeysan ilaa iminka heebtooda aan la garanin balse la sheegay inay wateen gaari nooca raaxada ah ayaa weeraray bar kontarool ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan booliiska wadanka Maali. weerarkan waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana la soo warinayaa in hal qofood uu geeriyooday halka saddex kale ay ku dhaawacmeen. shakhsiga geeriyooday ayaa la sheegay inuu kamid ahaa saraakiisha booliiska wadankaasi Maali xilliga weerarku u dhacayna ku sugnaa goobta. qof goobjooga oo si gaar ah u soo xiganaysa wakaalada wararka ee Reuters ayaa waxa uu sheegay in dibli hubeysan oo tiradoodu 4 ruux ay ka kooban tahay kuwaas oo watay qoryaha fudud ay weerar ku qaadeen bartan kontarool ee ciidamada booliiska wadanka Maali ay ku hubinayeen gaadiidka. kontaroolkan ciidanka booliiska lagu weeraray ayaa waxa uu dhacaa waqooyi galbeed magaalada caasimadda ah wadankaasi Maali. saraakiisha booliiska wadankaasi Maali ilaa iminka maysan ka hadlin weerarka lagu dilay sarkaalkan ka tirsan booliiska wadanka Maali sidoo kale lagu dhaawacay saddexdan kale askar ka tirsan booliiska wadankaasi Maali. wadanka Maali wuxuu ka mid yahay wadamada dhaca qaaradda Midowga Afrika waxaana sidoo kale wadankan sanadihii ugu dambeeyay ku soo xoogeysanaya kooxaha jihaadiyiinta oo iyagu weerar kala duwan ka geystay gudaha wadankaasi Maali. guud ahaan dhageystayaal warkii aad ka daawanayseen TV-ga S24 xafiiskiisa magaalada Muqdisho daawadayaal xilligan way naga intaydana waad ku mahadsantihiin daawashadii la jaanqaadka warkeena galab nabadgelyo. bishaaro macamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya moobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settingka moobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal settingka moobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM fiiro gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM mahadsanid.